jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika ayaa waxay kulan la qaateen dadka ka soo jeeda magaalada Raaso gobolka Afdheer ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Kulankaasi oo ahaa mid looga hadlayay sidii lagu garab istaagi lahaa jaamacaddii ugu horreysay oo Islaami ah oo laga hirgeliyo magaalada Raaso, taasi oo sidoo kale noqonaysa jaamacad Islaami ah tii ugu horreysay ee laga hirgeliyo Itoobiya. ahayn loo kala harayn in la qaato way jaamacadaas ilaahay maaragtay inta wax ku bixidana wax khayr qaba Allah siiyo, inta wadana khayr far badan Allah siiyo, inta maxaan ku iraahdaa soo aliftana khayr far badan Allah siiyo. hawsha ha loo kaco oo hawl dhab loo galay ha ahaato saxaafadda iyo odayaasha iyo dhaqaalaha baalki iyo ganacsatada iyo culimada inta ka soo qayb gashay aad u mahadsantiin. haday waa ka booday oo xogaa shirka daahay waa degdegay raalli ha layga ahaado. salaan kadib waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa beesha sharafta leh ee gogosha dhigtay isugu yeertay beelahan walaalaha ah meesha isugu yimid. waxaan aad ugu mahadcelinayaa. waxaa kaloo u mahadcelinayaa beelaha sharafta leh ee soo ajiibay kulanka isugu yimid, ayagana waan u mahadcelinayaa. waxaa mudnaan gaar mudan oo si gaar aan ugu mahadcelinayaa akhyaartii hawsha waday ilaa Itoobiya ka yimid noo yimid arinta u istaagay, ayagana waan u mahadcelinayaa. mahadcelin kadib run ahaantii waa arin muhiim ah oo mudan in loo istaago oo runtii aan isleeyahay waxyaabihiina soo mari jiray waxa ugu mudan oo ugu macquulsana taala wabarakaatu. waxaa farxad ii ah inaan ka soo qeybgalo kulankan kheyraadka ah ama maaragtay tabarucaadka loogu sameynayo jaamacadda Raaso. xaqiiqatan kulankan kulanamida hore maan ugu soo qeybgalin laba arrimood dartood. arrinta koowaad oo ah kulan kheyri ah oo loogu maaragtay wax loogu raadinayo jaamacad islaamiga oo ku taala geeska Afrika wadanka Itoobiya ismaamulka Soomaaliya. iyo arrinta labaad oo ah waa markii ugu horeysay qaraabada oo arrin noocan oo kale taa bilowday. waa farxad aydan ii tahay. inta kadib dhankayga waxaan ka boorinayaa oo qayb ka noqonayaa cod ahaan iyo dhaqaale ahaanba iyo xoog iyo maskaxintaba in arrinka loo istaago waxna laga qabto si aan u gaarno horumar. marka waxaan rajaynayaa in ayadan aan aad uga qayb qaadan doono kulankan oo noqon doono kulanka ugu horeeyay oo Google Furka sida Sharif kuba sheegay. kulanka dambana oo noqon doono kulan balaaran oo Soomaali oo qabiil walba isugu timaado. dad badan oo waxaa jira khayrka jecel oo muxuu hanteen Ilaahay siiyay haddii loo sheegana muxuu ahayd ka qayb qaadanaya. marka anigu waxaan qabaa inaan la soo koobin oo aan laga dhigin macnaha sheeg hawiyo kale ee macnaha Soomaali weyn loo bandhigo kulanka dambe oo soo socda oo dadka muxuu ahayd khiyaarta dadka muxuu ahayd culimada dadka muxuu ahayd lacagta leh tujaarta Ilaahay wax siiyay loo waco kulan weyn la qabto meeshaasna muxuu ahayd si fiican loo falanqeeyo. haddii Ilaahay yiraahdo anigu kullay inta karankayga waan ka qayb qaadanayaa wixii muxuu ahayd xooga wixii muxuu ahayd dhaqaale ah iyo wixii aan qaban karo. waxaan rajaynayaa inaan muxuu ahayd noqdo dadka hormuudka. Cabdirashiid Xuseen Karaash, Shabeelle TV, magaalada Johannesburg. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.